وان أركي شليته عرو جاي راشين وفرقيو إنك هذا هو فرقيو الله عليه حتى أردية ورقي تلك بابي dadkayna maanta wada kansar bay qaadeen maxay u qaadeen dadkayga gaajoonaya ayaan la dagaalamay gaajaan la dagaalamina baabuur dambe fi ayna la keeni ma cafiyaan samaysan ilaa soo iiminaya gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCD injineer Faysal Cali Waraabe ahna musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee UCD ayaa ka hadlay doorashooyinka la filayo in Soomaaliland ay ka qabsoomaan 13 November waxaana uu shacabweynaha reer Soomaaliland ugu baaqay inay codka ay siiyaan cidii ay dan ugu arkaan inay qarankan ay badbaadin karto. injineer Faysal Cali Waraabe sidoo kale waxa uu eedo culus u jeediyay xisbiga mucaaradka ah ee wadani. gudoomiyaha Faysal oo rimaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilaahay mahad subhanahu wa ta'ala Ilaahay baa keligii mahad leh. Ilaahayna mucaayanka badayna siya mahad leh. Ilaahayna amnigeena siya mahad leh. وعلى ما أنت وحوي وعادديني وما أنت ندتك الشعب غير السومالي لهذين ما كانوا عادي هذا وحنا محملينيا إذا كقارن كسيدة إذا كنا بتقليدا كل بوليسكا إذا كان مدنية وحنا ولا ريال نبد دفاعنا عيان كسحنا إلى هاي هدي قرقارو يدي إلو يمينه يدي لو مين هذا إن شاء الله تعالى أنا أنصاب حنا عيدا ضمبة وقاعدوني أركب ميسا إن شاء الله عيدا كبدني أنا إن شاء الله تعالى وحي قرمين دوني وقرمين دونا عيدا كان قولي دونا وحي كان إن شاء الله تعالى فرسمك على بني دونا وشغل دونا وحنا هذه أروح فرح سنة هاي نبدأ إلهي نسيه وإلهي والشكر نقيناه نولادا إلهي وحن شيء دوني يعني لا سعوديو ورتانو إلا ما أنتي دجالكو كان دعي هو أنتو ينقص سود شيء لاس عنود إلا ما أنت ويجي كسر مالي ما تذكر ورنا حويه ومد هذا ورمين والحالة ورمين تاجن تعدونك تجيء عندنا هاي تدرك جوديسة عاد وشيء إن المشرح بعطها وحي قدام حسنت إن الدرك كقبتي دول هاي كوقرا نقطة مرح ده مركها دتك وقت كم غنت دتك أدونك بابر لك حيسو ويستبقليو يدل العقل ودري يجو هور كاريا يجو على مسوق عطي dal lagu maxado dal waxa lagu wada oo lagu hantaa umada codka bixinaysa waxa horaan shaqo u qabtay oo mas'uulaha waxa saan qabtay halkaas aan gaarsiiyay halkaas wasiir baan ahaa asaasan qabtay madaxweynaha baarlamaan baan ahaa gudoomiye baarlamaan waxa saan qabtay maantana haddaan ku soo noqdo halkaay waxa saan qabanaya ya dad lagu codeeyo yaa oo kale أنا ولي ما قبل أنت أنشوفني حسبك وها مدحضة هنا نبدي ما كشقي أدون كورنا بان لاتين أمريكا كولومبيا أنتجي مكسيك أنتجي والرد عالم كان كجرا وحاصل قبان دونا نبدي ما كشقي إذا بدي ما أنتجي مركا كسارة ما كيس قبضة الصومال وأنا وحكوا فانا لكن باوراك حيصنية وأنت الدليلة أيام لا يقرب قرب وهي قال العكس هي سيقالة وما لكم وضع لا تكون الدوران مايو شعب غير صوماليا أنا ولا وادي شاغل أنا مستقبل كينا كشقينية ما أنتوا الوقت الدلكين هالكم مريم لبضع حسبي ودني وكل مية هوري تدبر سمحوي ضلكم ما أنتوا تشابه ما أنتوا تعصوها ما أنت الشرعي اللي تبي ما أنتوا تعصوها كو وما أنت لا بلامي إن برلمانك iyo guurtida iyo madaxtooyada isku milmaan waa maalintii la yiri guurtida aan 3 sano iyo 8 bilood ku dhina baarlamaanka 3 sano iyo 8 bilood guurtan 2 sanadood iyo 8 bilood ee kun isku bilaabay waa maalintii sharci la jabiyay
قدومي برلمان وشرا شرعين وشر قدون مش يجي دستوكين قدومي برلمان شر قدون لسمي ومالنتي حير فودين oo lagu taray in saddex xusbi la barbaariyo la institutionalize gareeyo way weligood jiraan la furay ilaa ciro saad Faysal meesha uga qaadin waxaan ku sameynaa xusban ku furana waa maalintii xaraashka lagu bilaabay shacabka iyo hantida qaranka waa maalintii la bilaabay ciidamada aan jirin in la qoro waa maalintii wixii institution la dhisay la baabiyay nabad sugiddu wax ahayd ilaa Mareykanka ay siin jiray warkeena nabad sugideen laano Cabdullah Ciro oo nabad sugidaha iyo riyaal madaxweynaha ayaa xiriir la lahaa wix ala wixii nabad sugidii Soomaaliya ragga hadda ordiya waa raggii dalka baabiyey waan arkay shalayto ciro gaayay raashin waa firdhiyo idin habeen oo dhan firdhiyo la hadlaya ana la socdo waan fadh fadhiya marka waxaan idin sheegayaa gebgebtan idama baahna sharci baa u baahan ku socotaan maanta dalkeena sharci kama socdo maxkamadaha hadda tagtid waa suuq lagu kala iibsaya dadka wase caafimaadka hadda tagtid sharci kama jiro baa mushariga hadda tagtid dadkeena maanta wada kansar bay qaadeen maxay u qaadeen laba arrimood baa weey waa raashinka wax sharci wax shaqeynaya qofku wuxuu doono ayuu sameynaya sharcigan soo celinaa insha Allah taala dastuurkan soo celinaa insha Allah taala dadka gaajoonaya ayaan la dagaalamay gaajo la dagaalamina baabuur dambe fi ayna la keenay ma afiyaan sameeysan ilaa soo iiminaya raashinkeena ayaan ka shaqeynaa dadka isku filaado shaqooyin baan abuurnaa insha Allah taala shaqooyin boqolkiiba 5 dadka waxaan gelin doonaa insha Allah taala farsamada maanta qof farsama guriga wax la saaraya baarkan ka celiya roobka magaalada la saaraya tinti ma garanay wax dhigaysta ma garanay dadkan farsamo baranay insha Allah taala waxaan ka shaqeynaa cadaalad waxaan wadooyinkan isku xidhnaa wado qolo dhisan ma jirto wadanka horumar baa u baahantiin nabadgelyo u baahantiin waxbarasho u baahantiin caafimaad baa u baahantiin biyo nadiif ah u baahantiin inta ma dawladda bixisa bal waxay sheegayaan labada kulmiye isha labada kulmiye haysay shacab bal waxa Maxamed Xaasho wax yeeshiisa isha dadka iibinaysa qabiil afmishaarnimo wada lagu xukumo aqoon baa lagu xukumaa iyo iimaan nabi Yusuf alayhi salaam wuxuu yiri idii baqasad muxuu yiri aamin baan ahay wixii axabkeen baan ahay Shucayb markay nabi Muuse u dhib aabo shaqaqiri qawi aamina qofku waa inuu noqdo qof aamina oo qawiya oo wax kala jaraya waa si diinteen wax ku dooran jirtay inuu amriso baaburanka haysan yahay bag marka waxa weeye inaga dhibaatadeenu waa labada xusbi waa A iyo B waa shin lacag labadiisina hadaa maanta doorataan labadan kulmiye nabadda haysataan ilaahay mahadi haysan maysan waxay soo kordhiyaan ma jirto dagaal ma ahayn imaka isku baayaan nabadiin xajista yaani afar danleeya oo baawr fi ay dhaqaystay oo laga kaxeeyay Hargeysa oo laga geeyay Burco oo magaalada boor ku baaray yaani idin waal shacbiga footeynaya idin ma socdo way ka horeysay shacbiga taageerada cid waxaan leeyahay waxaan dhanateedka ah waa iska riyo maatida dadka codeynaya way garanayaan maanta dantooda ana odays reer Soomaaliland oo inta ka shaqeynayay nabadii ka shaqeynayay waa iga dardaaran mustaqbalka aroortiina ha ku aaminina saldaan magacii suldaannimo la baabiyey wax aan kasta waan ku ciyaarnay
suldaan weligii lama arag salaadiinteeni hore oo suuqa maraya oo caytamaya oo reer caayaya lama arag. waxaad aragta kulmiya wadani rag ka buuxa ee salaadiinta sheeganaya waxay ku hadlayaan waad arkay shacbiga reer Soomaaliland. waxaan leeyahay shacbiga reer Soomaaliland ilaahay baa in talada ugu iibinaa, ilaahay baa in difaaci doona, ilaahay baa in ilaalin doona, ilaahay faqsh inaga ilaaliyay inagoo suuqa joogno oo qaawan oo dharkeen la haysto, ilaahay inaga badbaadiyay. maantana ka gudaha khaa'imiinta gudaha iyo daciifiinta aan qaw ahayn dalka 7 sano dambe hayay, ilaahay inaga dad baanu keeni doonaa aqoon leh, dibadahaanu ka keeni doonaa, Yurub baanu ka keeni, Maraykanka ka keeni doonaa oo reer Somaliland oo iimaan leh ayaanu meel kasta dhigi doonaa. baarlamaan wanaagsan baan samayn doonaa insha Allah oo sharci ku socda. guurita waa laga tashan doonaa inaan yeelanayo in kale tala laga gaari doonaa. dastuurkaan furi doonaa, wixii inaga xumaado dhammaan haddii ay hagaajin doonaa. ya reform weyn baan samayn doonaa, waxba inoo dhisan ma jirto. runtaan idin sheegaya shacbi wanaagsan baa weeye, shacbigaasana ku joognaa nabadiisa sharci inoo shaqaynaya maanta. cid accountable ma jirto, wasaarad wada shaqaynaysa ma jirto. dad dukaamada wadanku saas u taagaya. marka walaalayaal ilaahay aad samarka gasheen ee samarteen ee dadaasheen ilaahay isku qadin maayo. nabad ku seexda, doorasho wanaagsan inoo dhacaysa. heshiiska ABU waan saxeexnaa insha Allah taala. khayrkaas oo soo daadanaya insha Allah taala. dhawaanna wala saxiix doona insha Allah taala. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.